السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كنا سو dhawaada barnaamijkeena ma ogtiin ugu dambeyntii barnaamijkeena dib aan u bilaabanaa sababta World Cup-kii waa dhamaaday inta badan mashquul waxaan hayst koobkii adduunka warqabtay xilli dhafar iyo ciyaaro badan iyo waano suuri gali waas marka ma ogtiin u baahan diyaarin iyo xogo inaan soo arooshay iyo sheekooyin nostalgic aan galna marka mar labaad iyo ma ogtiin ku soo dhawaada saaxiibayaal caawan waxaan soo qaadanaa filimada kamid codsiga asxaabtu kamid ahay oo mar hore codsigaas lisoo gudbiyay listiga ku jira waa filimkii Ham oo Amitabh Bachchan iyo Govinda iyo Rajnikanth Jeestolo wada sameeyay sidoo kalena Danny Donsogbiya qadar qaan ninkii ahay Aisha lacag ama ninkii ah dabcan door culus ku lahaa abaska ana bam khayr door culus ku lahay iyo shakhsiyaad kale ka soo muuqdeen waa cult classic movie oo Amitabh Bachchan xitaa ku qaatay abaalmarinta Filmfare Awards qaybta atooraha ugu wanaagsan mid kamid ah filimada jileenkiisa ugu macaana uu sameeyay iyo sidoo kale markuu industry India u sii macsalaamin dhinaca awoodda waa filmadii horaantii sagaashamaadka oo la imaado big blockbuster ah marka hama isla eegeynaa wad ee cult classic movie ah inaba caaliman filmka saxabiyaal saacada uu soconaya 3 saac ku dhawaad maba dabcan tabi si sheekada loo kala qaybiyay Amitabh laakiin waa ku baashaal ciyaalka yaa filmka waxa waaye soo u jilay inuu best actor ku qaato hubantii ahaan uu qalma marka haman isla eegayna waxyaabaha laga diiwaan galiyay sheekooyinka nostalgiga ka haysiin wad ee movie waxa ham qof daawan film waa u dhimay calay taxal marka soo dhawaada Juma Teria inta badan loo yaqaana filmkan saxabiyaal wuxuu kamid yahay filmadii sagaashamaadkii ugu lacagta badnaa waliba 91 hal film kaliya ka lacag badnaa oo Sajan asiga wuxuu ahaa filmka labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay 91 wuxuuna ahaa blockbuster oo hamna waxa laga wada naga laga wada ama wi sababtoo si oo good oo wadan ahaan filmka hadla action drama oo ay Mukul S Anandi filmkan sameeyay Mukul S Anandi iyo Amitabh Bachchan saddex filim oo classic wada sameeyay Agnibad oo 90kii soo baxay inkastoo follow uu ahay Amitabh Bachchan wuxuu ku qaatay abaalmarinta caanka National Award dawladda Hindi bixiso ku qaatay haddana wuxuu u sameeyay Ham 90koodii oo huge blockbuster ah oo ku qaatay Filmfare Best Actor Quda Gawa iyo sidoo kale u sameeyay Amitabh Bachchan Sridevi asigana follow uu ahaa laakiin waa film dhaxal taariikhi ka taga big scale loo sameeyo Amitabh Bachchan xitaa bilada kala duwan ku qaatay marka Amitabh Bachchan iyo Mukul S Anandi filimada ay sameeyeen inaba caadi maahan ninka lagu magacaabo Ramesh Sharma wuxuu ka ahaa producer uu ka ahaa saaxiibayaal filimka Ham abaalmarintii Filmfare Awards midii 37 ee la qabtay horaantii 92 waxaa dabcan lagu tartamay category 7 qaybood kala duwan iyadoo lagu qaatay 4 bilad ee ku jirto best actor Amitabh Bachchan ku qaatay best choreographer waxa lagu siiyay Jenny Barkesh oo qaabku u sameeyay dancing heeska Juma iyo bilada kale lagu qaatay saaxiibayaal si diiwaan gashan sidoo kale waxyaabaha kale filmkan ka soo qaadan karana waxa qayb ka ah markii la fiiriyo muusigada waxa dabcan iska lahaay oo sameeyay markii heesaha la kasmantay biyaarle labada dabcan aan kala dhicin waxa kale oo jirta filmka inuu soo baxay 1 Febraayo 1991 soo baxay horaantii 91kii soo baxay ilaa iyo dabyaqada sanadka wuxuu kamid ahaa filmada sida caadiga aan loo daawado oo magaalka heestu kamid ahay Amitabh Bachchan wuxuu doortay inuu distributor ka noqdo ama uu qaato qaybinta cadaaladaha dhinacaasi Bombay halkaas oo lacagta ugu badan filmka soo xareeyay faa'iido ugu badan oo uu qaatay Mr Bachchan sida laga warqabo waxa kale oo cusub mudan hadaa ka warqabtiin ma ogtihiin in heeska Juma Teria filimka intaan lagu daawan ka hor ayaa dabcan dhinacaasi Wembley Stadium 1990kii Amitabh Bachchan iyo Sridevi ayaa stage masrax ka qaadan heeska oo waxay si ahayd hees caan ahayd oo chartbuster intaan filimka lagu daawanin waxa kale oo jirta saaxiibayaal ogaada dabcan heeskan marka hore filimka Ham looguma talagelin oo si dabcan xogaha trivia ama macluumaad filimkan ku diiwaan gashan waxa qayb ka ah film ee wadeen Amitabh Bachchan iyo Sridevi oo lagu magacaabo Ramki Gita Shamki Sita ee dabcan filimkaas la sameeyay horaantii wuxuu soo bixiyay 90kii soo bixiyay laakiin filimkaas uu baaqday saa darteed marka Mukul S Ananda iyo producerkii waxay weydiisteen directorkii filimkaas iska lahaay oo ay dhaheen Ramesh Sibi heeska nagu wareej marba haduu filimka baaqday dabcan oo uu noqdo film shalfad iska faraal iska galsho Amitabh Bachchan Sridevi sameeyay Agnibad waxa la heeskan kuma fiicno kadib marka Mukul S Ananda uu wareejiyay filimka Ham oo ay noqotay 91kii marka lagu daawaday hees chartbuster laakiin waxa dhacay muran kala dhacay sababtoo intaan heeska Juma lagu daawan filimka Ham waxa ka soo hormartay heeskii dabcan tama hada daawateen filimkii Tanidar oo Sandeydud uu sameeyay 90kii la daawaday oo Anuradha Badmal iyo Babal Lihari ay qaadeen heeskaasna waxay chartbuster marka tama Teria soo horeysay Juma Teria dambeysay laakiin waxa caansan markii la dhaho Juma caansan inkastoo Babal Lihari uu dhahay dabcan la kasmantay biyaarle heeska iga koobiyeen ayagana xidhan heeska hore nagu dubnaa yani ha controversial noqotay laakiin Ham waa ka faa'iideen dhinaca kale Ham wuxuu kamid ahaa filimada 91dii albumka heesa ugu badan koobi ugu badan laga sameeyay oo 3 milyan oo tigid ayaa laga
sameeyay sidoo kale tan marka horena heesaha filimkan waxaa lagu gatay 30 lag ayaa lagu gato oo xilligaas ay lacag oo record ahayd in album heeso oo cajal ee lagu gato 30 lag wax weyn ee xilligaas ee ugu dhigmato waqtigaas $132,000 Mareykanka ee sida xogaha ku diiwaan gashan waxyaabaha kale ee filimka ham laga soo qaadan karo waxa qaybka lacagta uu soo xareeyay filimka xilligaas waxay 17 karoor lacagta uu soo xareeyay sida diiwaan gashan waxa ka badnaa filimka Sergeant oo ah midka number 1 asigan labaad oo ah lacagtaas hadda waxay u dhigmataa markii lagu sicirka maanta lagu jaangooyo almost lacag gaarayso 150 karoor u dhigmataa ama almost $20 milyan Mareykanka xilligaas la joogo sida diiwaan gashan lacagtaas waa 17 karoor waa gross money ogaada lacagta nadiifka ah waxay noqonaysaa 9 karoor 10 karoor meelahaas ahayd sida diiwaan gashan sidoo kale waxa xusud mudan filimka lagu magacaabo ham in Rajnikanti uu wax ka soo min guuriyay tusaale ahaan filimkiisii Basha oo 95 la daawaday Rajnikanti waxa jirtay in director Mukul S Anand uu la fariisto shaqadii ham markii socotay wuxuu u soo jeediyay characterka dabcan Amitabh Bachchan hogaamiyaha filimka oo Tiger ama Sekhar uu ku matalayo in Govinda uu caawiyo asoo police academy ka soo baxay dan kadibna garab u siinayo si uu kaga caawiyo sida uu characterkaas xabsi kaga soo bixi lahaay aragtidaas markuu soo jeediyay Jastole waa qaadan waa Mukul S Anand wuxuu dhami anfacis saadartay marka sheekadaas yar oo Jastole Mukul S Anand kaga sheekeeyay ayaa intuu wax kale ku daray uu director u dhiibay wuxuu ka soo saaray filimka Basha wuxuu dhahay sheekada yar Mukul S Anand aan la wada iga diiday ay inspiration ugu dhaliso film dhameystirna ka sameeyo 1995 kii Basha soo bixay marka oo Tamilka ahayo asigana huge black person noqday waa waxyaabaha dabcan legacy filimkan uu ka tago la soo qaadan karo sidoo kale saaxiibayaal ma ogtiyo sheekooyinka filimka ham waxa qayb ka ah Madhuri Dixit ayaa la rabay inay kaalin ku yeelato way suurigali waase ugu dambeyntiina Kima Katkar ayaa booskeeda lagu bedelay sidoo kale Gulshan Grover asigana booska wuxuu matalay Anupam Kher uu qaatay askariga door miisaanka culus ah laakiin Gulshan Grover shaqooyin kale ku mashquulay sidaas ay ugu suurigali waase markii in dabcan filimka uu sameeyo waxa kale oo ma ogtiin qaybka ku soo qaadan karnaa Danny Donsogbiya iyo Amitabh Bachchan filimada Agni Bad iyo Ham iyo Quda Gawa saddexda filim way ka soo wada muuqdeen waliba si kalti ee Jilanjilink ee wada sameeyna inaba caadi ma nin walba kaalintiisa miisaanka culus oo saaxiibayaal u qaatay waa sheekooyinka xogaha filimkan ee laga diiwaan gelin karaa soo qaadan karno ham waxa aan wuxuu kamid yahay filmadii oo xilli hore aan daawado kamid yahay horaantii 9-maadkii aan daawaday hadaba filimka ham sheekadiis waxa xasuusanaa aniga inta badan buu xasuustaa laakiin aan daawado goorma ugu dambeysay waxa u maleynaa almost 20 sano ka hor ham ma daawana u maleynaa waa hore ugu dambeysay filimka ham aan daawado laakiin still remember waxa ku xasuustaa in Amitabh Bachchan dabcan marka hore uu yahay qof dabcan dakadii waxaas ka shaqeeyay aabiis caawinay Danny ma inay wada shaqeynaan jeclahay Danny Donsogbiya filimka dabcan marka hore laadarka filimka wuxuu ka dambeeyaa markii la fiirsho Amitabh Bachchan iyo familkiisii dhibaato u geysanay Amitabh Bachchan isla Danny ka argudo Anupam Kher ka cilna askari oo dhahayo ilmahan oo aabaha uu kaaga dhintay ilmahan kori dardaaranka dabcan eedada ilmahan kori wuxuu la soo tagaa marka Bambayo ka soo tagaa uu tii imaanaya wuxuu korinayaa Jastole iyo Govinda wuxuu iska noqonaa magacii Tiger iyo qamarjinimada iyo dakadii wuxuu ka shaqeynaa iska deena wuxuu la baxaa magaca Sekhar ee uu iska ganacsadaa ilmihii waaba kana dabcan askari noqon Jastole askari noqonaa kan kale college u dhigtaa وكال إسكار جوفيندا وحوا شلبا شرط جراج علكيسة أميتابh Bachchan وحي إسجعلاين قبل جمعة مهد كيما كتكر ووقتي كلا جينا مردم إسكسور لابنايان جاستول تكلو دبا سهمال أو جورسان عنو ولا شيء لايف نلا عاد يقول كجرام ninkii hay wax kasta waxa ka dambeeyo lacag ka dambeeyo ama Anupam Kher ka dambeeyo ninkii qabanaya dabcan wuxuu qabanaya Danny xabsi u galna fam Danny gabadhiisa ka dila xaaska Danny u dila hantida Danny la wareega muddo kadib markii Danny uu xabsiga ka soo baxo muddo kadib intuu qabto le waraa wax maqlaysaa uu leeyahay hantidaadi iyo waxa burburshay reerkaaga dilay waxaasna waxa waaye Tiger waay oo hadda hebelo la baxay Sekhar oo uu ku nool Danny oo xarashaya wuxuu imaana marka meeshii uu joogo Amitabh Bachchan iyo familkiisa ka noolaayeen nin iska caadi ah Jastole xaaskiisii gabadhiisa afduubanaya dan kadib waxa dhacays in Rajnikanti ogaanayo Amitabh Bachchan wajigiis dhabta inuusan ahayn nin uu ahaan jiray qamarji hore uu soo koriyay Govinda Amitabh iyo Jastole Amitabh Bachchan ku xanaaqayaan Kima Katkar u sheegayso dhays ninkan dartiinu noloshiisa hore wax kasta kaga tanaasul asaa idin soo koriyay dhibaato badan ka soo maray uu idin jecel yahay idin ma nacbo way midooba United noqonaa way midooba dan kadibna waxa waaye gabadhii Danny ka soo badbaadsanayeen cunugtu hay Danny wuxuu sheegay Amitabh Bachchan qofka waxa ka
dambe dhanba inuu yahay sheekada lagu ogaana anubam kheer ultimada xataa I think waxaan jeclan oo ahaa bambam ay ku wada qarxayaan dani iyo anubam kheer saas inay taan jeclaho hal bamba ku wada qarxayaan dani uu leeyahay ninkan ani waa isla tagayna maadaama dhibaato badan uu geystay marka sheeko wuxuu ahay oo very dramatic oo engaging lavish lacagta la galish xilligaas caadi ma ahan goobaha lagu duubay bandhiga horta amita ciyaalka ku raaxaysto waxa ilmuhu soo korsanaa oo ka dhigtaba soo rabo ka yeeshay ciyaalkii isxanaajiyo waa ka adag yaabo Jestola frig badan oo Govinda xoogaa iska degan Jestola balay iska dhiga saxata meel la saara wala filmkaas ham hadii la dhaho hadda waa lagu celinaa oo la dhaho remake hana loo sameeyna sidoo amita bajan ugu raaxaysto lagu raaxaysan kara isla amita ciyaalka beerku ka garaac filmka dhanba asaa qaatay inkastoo filmka balaaran 3 hour uu yahay space uu si wax kasta ay qaateen laakiin sheekada dhanba Tiger iyo Saqar le waa ilmaha uu soo korsada le waayba iyo dani sida loo qiyaamay iyo anbam qeer kaartada uu dagay iyo filmka caadi ma ayaa qof kasta ka soo muuqana micna aan caadi inuu leeyahay xitaa qadar qaana ku jiro rag badan ka soo muuqda waa laga buux filmka jiba laga ah marka calay taxal ham intaas aan ka xasuustaa wixii aan ka qalday idinka dabcan ku dareysan la fii hore jooga meeshan garsooryaal badan joogaan oo zaki media naga dhaxayo oo dabcan isaxaan wixii aan ka tago sheeko waa ku dari karteen wixii aan qalday laakiin xasuusi hore aan haysta ka sheekana 20 years ugu dambeys filmka aan daawad marka aad u maasantiin barnaamijkan intaas nooga egyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh